wajigii koowaad ee kaar qaadashada codbixinta degmooyinka gobolka Sool ayaa soo gabagaboobay waxaana si nabadgelyo ah ku soo noqday shaqaalaha ka howlgalaya goobahaasi kaar bixinta oo ahayd 177 goobood ee gobolka Sool waxaana xalay ilaa saaka subaxnimadii hore isdaba socday gaadiidka soo xareynaya agabka shaqada iyo waliba shaqaalihii iyagoo lagu soo xareeyay xarunta dhexe ee guddiga doorashooyinka qaranka ee magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool qaar ka mid ah shaqaalihii ka howlgalaya kaar qaadashada ayaa ka hadlay dareenkooda وجاء ثليبان نور كان من أرض جهاد النقال قاعدين كوبشن كسمالان وحنو جين نقول كحيسمة وتلاح سيف عبان وشغلني مقعي وانا استحجة محمد وحنا أرض كم إذا جهاد النقال كعيان تجني وصلنا من نقلنا له ونسونا بتجريه أنا جاه قدوميها كوبشن كتجمع عينوا إبراهيم عيسى حسن رمان جوها قبل كسرار أما تجمع عينوا لما أنت تسن بتجليها أيه كوسو حرادين guddiga doorashooyinka qaranka ugu horeeyay gudoomiyaha guddiga doorashooyinka qaranka mudane Cabdulqaadir Iimaan Warsame ay weheliyaan mas'uuliyiin ka socda asxaabta qaranka oo la hadlay warbaahinta ayaa ka warbixiyay soo xareynta dhammaan shaqaalihii iyo waliba gaadiidkii iyo ciidamadii ku howlanaa ilaalinta habsami socodka kaar qaadashada gobolka iyadoo ay tahay 5 maalmood oo horeysay ee dibaddu inay noo soo dhamaadeen kuna soo dhamaadeen guul iyo reereyn waa alxamdulillah say u kala dhaceena waa la idin sheegi waxaanu wada joognaa xisbiyadii ilaahay baa mahad leh marka hore ilaahay baan u mahadnaqaynaa ilaahay inoo sahlay inoo suurta galiyay in ay shaqadii aynu qaranka u haynay ay inoo soo dhamaato oo ay maanta gabagabo ku jirtaba in qof kasta ugu yaraan uu kaadhkiisii haysto oo si sharciye isu diiwaan galiyay una diyaar yahay inuu doorashada ka qayb qaato insha Allah bismillaahi kariim aynu ku sii saqayno gabagabadeedii marka koowaad marka labaadna waxaanu u mahadnaqaynaa howlwadeenadii iyo ciddii hawsha gacanta ku haysay ugu horeeyaan komishanka doorashooyinka qaranku iyo dhalinyaradii ay qaateen ee la shaqeynaysay jaamacadda Nugaal University ee gobolka Sool hawsha iyada ah sidii wanaagsaneyd ay inoogu socotay waxaanu maanta soo xiraynaa 5 maalmood ee hordhaca u ahayd lana oran karo waa intii lafdhabarta ahayd ama ugu weyneyd hawsha la qabanayay iyagoo ay maanta tahay gobolkii ugu dambeeyay goboladii labada gobol ugu dambeeyay doorashada qaadashada kaararku ay ka socotay hawsha ay qabteen aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa Sool kaar qaadashada codbixinta ee gobolka Sool ayaa muddo 5 cisho ka socotay degmooyinka guud ahaanba gobolka Sool oo gaaraysa ilaa 177 goobood وبرخد عمر أحمد والبانت قرن كجمهورية الصوماليلاند لاسعانود عبد الرحمن علي الدعالي هون كيبل تي في لاسعانود